gudoomiyaha sportska Jibriil macalinimada markuu ii dhiibay wuxuu dhahay adaa macalinka ee meeshaas aan ka balanay inuusan macnaha wax faragelin igu sameynin aan u madax banaanahay marka kulay waxa dhacday muddo la soo aalmiiteynay tababarka muddo ciyaartooyda aan ku soo sameeynay waxa dhacday markii ciyaarihii soo dhawaadaan oo geemamka ay bilaaban rabaan kulankii koowaad ani iyo macalinka xigeenkayga waxa uu keensanay gudoomiyaha shaxdaan aan wadanaa shaxdaan aan garoonka ku gal rabnaa marka kulay wuxuu dhahay shaxdaan bedela shaxdaan kale saan ha loo galiyo rag aan tababarka imaan jirin oo dhahay macnaha hal safo kulay shaxd ma kulankii koowaad waa ku qaadanay oo sidii aan ku dheelnay kulay dulduleelay aan ka baqayo meesha ka soo baxeen in macnaha ciyaartooyda ay soo raacan waayaan leen ragaan tababarka imaan jirnay ay ahaayeen waa la iiga badiyay waxa dhacday marka in iskaga aamusay kulankii labaad isla shaxdii haddana wuxuu dhahay gudoomiyaha sportska Jibriil isla shaxdii ku soo gal marka waxaan dhaaniyahow kulankii hore asadaan la iiga badiyay dulduleelada meesha ka muuqdana u jeedan kubadda raacasho la'aan way jirtay tababarkana ma imaadaan ragga macnaha hal safo ah leedahay wuu igu cadaadiyay waayahan dhahay garoonka markii la tagay go'aan aan qaatay go'aankaas oo ahaa in aan safo ciyaartooydii ii imaanisay tababarka ciyaartooy fiican ay ahaayeen kulay jeebkoodan iska soo bari jiray marka guulo ilaahay iga siiyay waan ku guuleysanay kulankaas waxa dhacday marka intuu igu hambaleeyay lahaa gudoomiyihii sportska uu ka xanaaqay guushii aan gaarnay isagoo dhahay kulay waxa u saf weysay ragii ani aan ii saf ku dhahay waxaan dhahay gudoomiye ku muuqatay guush aan gaarnay kulankii hore taladaadaan qaatay waa la iiga badiyay kulankan go'aan ani hoos ka qaatay kulay waana ku badiyay inta ku farxi lahayd ma ani waxba iga magelno dhaa guul daro laakiin ani amarkayga inaan ku shaqaysid waxaan kugu amr ah qaadatid hadaadan qaadanin ani adim isla shaqay karno marka waxa dhacday in ani go'aan hoos ka qaatay kulay gudoomiyaha degmadana uu na balamiyay casho sharaf habeen uu nagu balamiyay meesha markii aan tagnay casharafta colo tower aniga waa xanaaqsanaa sababtoo ah macallin guul gaaray oo haddana aan guushiisa gudoomiyaha sports ugu hambalyeynaynin markii la wacay meesha istaagay waxaan dhahay aniga degmada waan ka tagay waxaan uga tagay gudoomiyaha sportska oo igu soo fargeliyay arinteyda marka sidaas aan iskaga casilay dadkii oo joogan warbaahintii kulli waa joogeen telefishinada laakiin hadalkayga meesha waa laga jaray aad iyo aad taas ugu xumaaday wallahi waxa sabab ah kulli macalinka waxa loo baahan yahay mar hadii wax loo dhiibo shaqada in farax loo qaado mar hadii macnaha fargelin lagu hayo macalinka meeshaas wax natiijo ma ka imaanayso oo nin jeclaysi iyo ninkan isaf oo la leeyahay macalinka taasana sabab u ah wallahi waxaan jeclaa insha Allah inaan ku soo noqdo meesheeda aan ka sii wado saasaan rajeynaa Ilaahay ka raali noqdo